marka zamanka ayaan waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaqiisa ka socda ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyihiin nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xidhiidhkii innakii ilaahay noo dhexeeyey baa meesha ka baxay xidhiidhka haddaan hagaajisanno nolosha adduunkan iyo taakhiro ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegoo yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umuurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kaanat iddunyaa hammahu jacalahu allaahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa allaahu shamlahu walam ya'tihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi qofka hammigiisa ka dhiga adduunyo waxa uu ku fikirayaa waa adduunyo waxa uu ka shaqaynayaa waa adduunyo waxa uu ku seexanayaa waa adduunyo waxa uu ku soo kacayaa waa adduunyo waxa uu ka hadlayaa waa adduunyo waxa uu eegayaa waa adduunyo qofka hammigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nebigu yidhi arrimihiisoo dhan ilaahay barya galbeed buu kaga kala shaydhinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri weligaana ka baxayn baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaane in kale ma hela buu rasuulku yidhi waman kaanat alaakhiratu hammahu ninka hammigiisa ka dhigay buu nebigu yidhi aakhiro macneegu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonayaa salaaddii buu ilaalinayaa soonkii buu ilaalinayaa xaqii dadku iska ilaalinayaa xaqii jaarkiisuu ilaalinayaa xaqa dadku la nool yahay buu iska ilaalinayaa dembiguu yar ilaalinayaa wanaagga ayuu ka shaqaynayaa hammigiisuu aakhiro camal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay camal aakhiradiisa badbaadinayana wuu u dhiiran yahuu qabanayaa mar walba ninka hammigiisa ka dhigay buu nebigu yidhi aakhiro qalbigiisaa ilaahay ka dhiga hani hodantinimada qalbiga ilaahay siiyaa qofku meesha uu ka noqdaa caydhna waa qalbiga meeshuu hani ka noqdaana waa halkee waa qalbiga dagu waxaan moodayn hebel waa nin milyoondeera warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa hinada gelinaya hinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hammigiisa ninka ka dhigay buu nebigu yidhi aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiyaa arrimihiisoo dhanna ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dullaysan oo u san dullaysan ayay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi adduunyadu muuminka way doondoonan hadhkaaga ma aduu ku daba socdaa mise adaa daba socda yaa isagaa ku daba socda hadh adduunyadu baa la yidhi qofka adduunyadu waa sida hadhka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tidhahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baa ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi hadhkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam ya'tihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi ma helo qofka hammigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray maana wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteennu inama leh hadda ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doonta waxaa loo isticmaalaa barriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakar sidiiq radia allaahu canh maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maalqabeen buu ahaa
tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdillaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn